soo degtay waxa ay gashaa dalka gudihiisa badankooduna waxa ay u dhaafaan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya iyada oo marsada Djibouti ay ka wada faa'iideystaan dalalka degmada ku yaala sida Itoobiya iyo Soomaaliya dabada xiriirka waxa ay isku xiriirtaa Djibouti iyo Itoobiya dabada xiriirka oo la dhamaystiray 1917 waxa ay ka dhaxaysay waqtigii gumaysiga maamulkii Faransiiska ee dalka gumaysanayay iyo Itoobiya marsadu wax qiimo ah ma ay yeelateen haddii tareenadaasi ay yihiin labada wadan isku xiriirinaya oo badeecada marsada geeya wadankaasi Itoobiya isla markaana Djibouti keena badeecad fara badan oo Itoobiya ka timaada shacbiga Djibouti weligiina ma ogolaanin heriyada gumaysiga waxaana mar walba ay aqoonsanaayeen in dhulkooda gumaysi uu haysto halganna loo galo madax banaanida taasina ay lagama maarmaan tahay dabayaaqadii sanadadii kontonadii ayay ummadaha Afrika ay u islaadeen xornimo ay gaadhaan oo hawada gubernimo doonku ay matay gumaysiga oo markaasi arkayay wadanada Afrika waxa ay rabaan waxa uu soo saaray 1957 xeerka ugu magac daray Luwakada oo uu ku ilgadayay hawada markaasi jirtay gubernimo doonka sharcigaasi oo uu ku tilmaamay in madaxda Afrika ay waqtigaasi joogtay uu fasaxayo ilaalinta shakhsiyadda wadanadooda isla markaana maamulka ay kaga qayb galayaan taariikhaha lama ilaawaanka ah ee halganka dalkeena waxaa ka mid ah abtidii bishii Sebtembar 28 sanadkii 1958 abtidaasi oo gumaysigu u maroosaday waxa gumaysigu markaasi uu sheegay ummaddu in ay haa ku bixisay codkii ahaa in Faransiiska dalku ka sii tirsanaado iyo in kale halyeeyada baalka dahabka kaga qoran taariikhda gobernimada waxaa ka mid ah Maxamuud Harbi halgankaasi marnaba ma dilin dad badan ayaa 1958 wixii ka dambeeyay ku dhintay cadaadiska gumaysiga dad badan oo kalena maankoodii ayay ku waayeen halgankaasi iyo shucuurtii gobernimada gumaysiguna waxa uu la soo baxay wejigiisii runta ahaa wax dhisma ah oo uu ka sameeyo dalka hadjoogtay waxa uu ka shaqaynayay hadda kadib dhaxal guurka ummadda xag dhaqan iyo xag walba gaar ahaan diinta oo uu si weyn ula dagaalamayay si uu dalku ugu noqdo askartiisa xero ay ku tuntaan iyo meel nasasho dhaxalguurkaasi ayaa u weynaa waxa ummaddu ay ka quumamootay halgankana si weyn u xoojiyey dadka reer Djibouti in ay mar walba u soo jeedeen ilaalinta xuquuqdooda waxaa tusaale u ah shaqo ka fadhiisigii sanadkii 1967 ay sameeyeen dadkii maraakiibta wax ka dejinayay ee marsada ka shaqaynayay dadkaasi oo gumaysigu wada dareeriyay ama uu wada eriyay iyada oo waxa keliyaatay ee uu ku eriyay ahayd waxa ay dalbadeen xuquuqdooda in la dhowro gaar ahaan in mishaarooyinka loo kordhiyo taasina waxa ay ka mid tahay ayaa la odhan karaa tallaabooyinkii u waaweynaa ee halganka ummadda jamhuuriyadda Djibouti oriyey ama uu ka bilaamay cadaadiska iyo caburinta gumaysigu ku hayay ummadda Djibouti aad ayay u fara badnaayeen iyada oo mar walba ummadda jamhuuriyadda Djibouti ku laana indhaha hoos ayna uga dhigayeen in xuquuqdooda ay
ay sheegtaan. astaamaha faransiisku uu kaga tegay dalka waxaa ka mid ah dhismooyinka xaafadaha magaalada oo aad u ba'an, taariikhaha lama ilaawaanka ah ee ummadda Jabuuti halgankeeda bartilmaameedka u ah waxaa ka mid ah bishii Uun 25 sanadkii 1966 markaasi oo dalka u yimiday General de Gaulle madaxweynihii waddanka Faransiiska. ummadna iyada oo aan gabanaynin ayay kala hortageen in ay doonayaan gobonnimo, waxaana cid waliba ay xasuusan tahay sidii bahalnimada ahayd ee loo xasuuqay ummadda waxba aan galabsanin ee markaasi waxa ay doonayso u sheeganaysay. hase yeeshee qof dalkiisa la haysto waxa uu joogsan karaa ay ma jirto. shacbiga reer Jabuuti waxa uu markaasi wixii ka dambeeyey guntiga dhiisha uu iskaga dhigay in uu gumaysiga dagaal xoog leh la galo. ilaa iyo haftidii labaad ee laga qaaday shacbiga ee 19 Maars 1967 taariikhda guurto weeye waxaa la ogsoon yahay dagaalkii banaa ee gumaysigu uu ku qaaday ummadda reer Jabuuti waqtigaasi wixii ka dambeeyey, iyada oo uu ummadda horseed u ahaa xisbigii la odhan jiray xisbiga dhaqdhaqaaqa ummadda ee Mouvement Populaire. mar kale markii gumaysigu uu maroorsaday doorashadii labaad ee uu sheegay in ummaddu codkeeda ay ku bixisay in ay ka sii tirsanaato jamhuuriyadda Faransiiska, ayay ummaddu markaasi waxa ay gashay halgan dheer iyaga oo mar walba diidanay oo may ahayd joogitaanka gumaysiga. halkaasi markii arrimuhu ay marayeen ayay ummaddu waxa ay garatay in ay dhimato ama guul ay gaadho.
siligaasi oo miino lahaa dad fara badan oo geesi ah oo gobonnimo dhul ah ayaa ku geeriyooday dadkii uu ka celinayay dhulkooda ee uu dibadda uga saaray xaafadda balbalaah oo waqtigaasi eeda loo bixiyey ayaa ah astaanta gobonnimada iyo cadaadiskii gumaysigu ummadda ku hayay halkaasi oo uu dadka ku xidhay magaaladana ugu diidayay iyada oo magaalada jabuuti iyo xaafaddaasi balbalaah siligaasi miinada lihi uu kala xidhayay oo dadku ay warqado ku soo dhaafayeen sidii laba magaalo oo kale waxaana dabadeed faransiisku uu bedelay sharcigii waddanku uu ku dhisnaa iyada oo loo bixiyey dalka CFA oo laga bedelay magacii horey loogu yaqaanay ee ahaa CFS xeebta soomaalida ee faransiisku gumaysto taasi oo golaha baarlamanka ee faransiisku isku raacay halkani waxay astaan u tahay cadaadiskii gumaysiga marka dadku ay ka yimaadaan dalka intiisa kale ee dhinaca koonfurta ayaa halkaasi ummadda lagu ciqaabayay fatishaad ayaa mar walba lagu samaynayay dadka iyo baabuurta halkaasi ka soo galaysaba idina ma ilaawi karto baaritaankii iyo dhibaatooyinkii halkaasi ummadda loogu geysanayay oo qofku inkasta oo warqado sito warqadihii waddaniga haddana welwel mar walba ay ka qabaysay dhibaatada halkaasi uu kala kulmayo oo uunan ogeyn goobta nagaad loo yaqaano oo lagu baadhayay baabuurka tareentu marka uu soo marayaba magaalada uu soo galayaba ayaa waxa ay tahay mahadho ummaddu aynan kolaanay ilaawi karaynin iyada oo ummadda intuu laga soo wada dhaadhiciyo baabuurka la gelinayay xeriyo silig ah waayeel iyo caruur qofku haw dooniba ha ahaadee oon cidna xurmo iyo heshooda loo lahayn
lagu hayay marka magaalada la soo galayo iyo magaalada gudaheedaba oo sulkii aad ka wareegtaba faakii ay ahayd mid ummadda reer Djibouti joogto ah iyada oo qofku siligaasi marka la geliyo ay ahayd dhibaatada u weyn ee qof wadaniga soo food saarta marka qayb ka mid ah ama degmo ka mid ah dhulkiisii laga celinayo marka qofka xeradaasi la geliyo ayaa naf ugu dambaysay iyadoo qofku waxa uu kala baxayo iyo xaaladda ka mudan doonta siligaasi unugay magaalada ee Balbala waxay ahaayeen asbaabaha gumaysiga ee dadku aynan kullana iloobaynin ay weligood xasuusnaanayaan qofka halkaasi lagu qabto waxaa loo soo qaadayay ilaa iyo fiishka iyada oo qaarkood si toosaba dibadda loogu soo daadinayay oo dalkaba laga saarayay qofka ay warqada ka waayaan ama si kaleba ay ugu baahdaan ee ay doonaan ciidamadii gumaysigu in ay gartaan cidda ay yihiin isku duubnay halgankaasi dheer aynan u kala hadhin haddana waxaa jiray dad tiro yar nasiib wanaag oo iyagu u shaqaynayay gumaysiga carcaraabka iyo dhibaatada ummadda Djibouti loo geysanayna qayb weyn ku lahaa ilayn mahadha ah oo afkeena ka soo jeeda ayaa odhanaysa gudunay ima goyseen gobolkayba ku yaal Brazzaville ama dalgalatu waxa iyaduna ahayd asbaabaha cadaadiska gumaysiga weli lagu xasuusan yahay oo mar walba waxa weli dagaheena aan ka bixin oo kusii jirta bandowda marka lagu soo rogo magaalada oo la oran jiray waxa ay ka bilaabantaa wadadaasi Brazzaville ama dalgalka ilaa iyo Baraashka magaalada dhammaanteed ayaa bandowdaasi lagu soo rogayay iyada oo dadka buulka galaaya yaraayeenba dadka kalena bandowdaasi ay xidhaysay ayaa waxaad arkaysaan in ilaa buulkii uu maran yahay oo wax socda ayna jirin magaalada ayaa laga arkayay astaanta cadaadiska gumaysiga iyada oo dalgalka wixii ka hooseeya aan lagu arkaynin guri bilicsan oo ku
gumaysigu uu geystay doorashooyinkii dalka ka dhacay ilayna gumaysigu quusba yaqaane waxa uu yidhi doorashooyinkaasi 18 iyo 17 ummadda Jabuuti waxa ay ku dooratay in ay Faransiis ahaato waana sii ahaan doontaan iyadoo hadalkiisa uu ku sheegay in ummadda Jabuuti ay tahay Faransiis isagoo markaasi weliba raaciyay in hadalkaasi aan loo baahnayn waayo ummadda Jabuuti ayaaba dooratay in ay Faransiis sii ahaato idina kama wadin karto ayuu yidhi. Certains attendent peut-être de moi que je réaffirme à cette occasion l'appartenance du territoire à la République. Cela me paraît en vérité inutile. Cette appartenance résulte de la volonté de la population, volonté librement exprimée avec la plus grande netteté dans les référendums qui ont concerné directement son destin. En 1958, et de façon plus significative en 1967. Vous êtes français parce que vous voulez l'être et le rester. Et personne ne pourra aller contre cette vérité d'évidence. marka laga bilaabo ayuu halgankii aad u sii xoogaystay ummaduna ay garatay in gumaysiga loo baahan yahay in halganka aanan la dabinin madaxdii xisbiga LPA ee u tirinaysay ummadda gobonaadoonka ayaa waxaa markaasi ay ku tiriyeen in xaafadaha magaalo madaxda iyo magaalooyinka kale ee dalku ka kooban yahayba in laga furo gobollo ama unugyo ummadda gobonaadoonku ay isugu timaado si joogto looga dhigo xidhiidhka ummadda iyo madaxda u tirinaysay LPA iyada oo madaxdaasi LPA uu hormuud ka ahaa madaxweyne xasan guuleed abtidoor jihadii FSS-na waxaa markaasi ay xoojisay dhaqaaqyadeedii iyo halgankii ummadda Jabuuti ee gobonimada lagu doonayey xooggii gumaysiga lagula dagaalamayay
ummaddaasi in ay ka go'an tahay in aynan degmin halganka gobonnimo doonka. magaalada Jabuuti iyo magaalooyinka kale ee dalku ka kooban yahayna markaasi halganku cirka ayuu isku shareeray. gobolladii LPIs ayay madaxdu mar walba booqashooyin ku soo marayeen iyaga oo dadka ku baraarujinayay halgankaasi in ay degmin oo halkaasi lagaga wado ilaa iyo inta guusha lagu dhicinayo ee dagaalka gobonnimo doonka midhihiisa la gaarayo. waxaa ummadda ay uga warramayeen qadaadka iyo xumaanta gumaystuhu uu leeyahay halgankii dheeraa iyo sida looga garaynayo gobonnimo macaan oo ummaddu ay gaadho. waxaana jiray maamul gobolladaasi ay lahaayeen iyo iyaga oo mar walba gumaystuhu habeen iyo dagaar uu ummaddaasi la dul joogay cadaadis. hase yeeshee taasi aynan ka joojin yihiin dadku in ay gobollada LPI ay buuxiyaan oo halkaasi ay ku muujiyaan in ay gobonnimada mar walba diyaar u yihiin. waxaana madaxdu ay dibadda ugu baxayeen olole ay adduunka kaga soo raadinayaan halgankaasi ummadda ay ku jirto iyo cadaadiska gumayska Faransiisku ku hayo. ololahaasi waxaa madaxda gobonnimo doonka ku garabgelayay ummadda iyo dowladdii Soomaaliyeed. waxaa kullaana aan la ilaawi karaynin halgankaasi kaalintii ay ka soo galeen dadkii mar walba u heegnaa gobonnimo doonka ee gurwadaha ee ka shaqaynayay gobollada iyo dadkii howlka aan baxay wada noqday ee dadka heesaha ku baraarujinayay iyo suugaanta kale. halgankii ummaddu markii uu kala joogsan waayey ayay gumaysiga ku qasabtay inuu qabanqaabiyo shirkii Paris bishii Febraayo 8 ilaa bishii Maars 26 1977. shirkaasi oo 3 toddobaad socday waxaa lagaga wada hadlay mustaqbalka dalka iyo iskaashiga dowladda dambe ay la yeelanayso waddanka Faransiiska. waxaana lagu gaadhay in la qabanqaabiyo afti ummadda laga qaado in ay gobonnimo doonaysa iyo in kale bisha Mee 8 gobonnimadana bisha Juun 27.
doorashadii waxaa la qabanqaabiyey bishii May 8 sanadkii 1977 iyada oo ummadda la weydiiyey in ay gobonnimo doonayaan iyo in kale iyada oo weliba taasi ay la socotay doorashadii baarlamaanku. gumaystuhu waxa uu ka sugayey ummadda waqtiga dheer u halgamaysay gobonnimada in ay maya yidhaahdeen. ummaddii oo isku duuban ayaa markaasi u dareertay xafiisyadii doorashadu ay ka dhacaysay, waxaana xisbiyadii ama dhaqdhaqaaqyadii gobonnimo doonku ay isugu yimaadeen magaca ama xisbiga isku tega shacbiga ee gobonnimo doonka. waxa ay arkaysaan ummaddii oo ku qabantay hamuumina ay u haysay in ay si degdeg ah codkooda u dhiibtaan oo gobonnimada ay si degdega uga odeeyaan. waxa weeyaan gobonnimo ma doonaysaa? haa, taabad ku leedahay. gobonnimo ma dooni? maya, taabad ku leedahay. marka waxa dhigay xeerku warqadii waxaa isku laabsaa mar qura guushii dadkiiyo dalka gacayo xigtooy. markii midida daabkeeda ummadda uu gacanteeda soo galay ee iyaga la weydiiyey in ay gobonnimo doonayaan, sida ud iyo diilkeed ayay ummaddu codkeedii u bixisay iyada oo ay ku jawaabeen gobonnimo, iyada oo ay tahay fursad weyn oo soo martay muddada dheer ay sugayeen oo ummaddu kollaana aynan ogolanaynin in fursaddaasi ay ka baanato. ummadda oo aad u garanaysa macnaha gobonnimo oo ay tahay waxa hayeeye fara badani ay u gudgaleen ee ay ugu dhinteen. qaar fara badan oo kalena gaajo, macluul iyo haraad ay cidlo ugu dhinteen. waxa aad arkaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo halganka madax ka ahaa oo codkiisii dhiganaya. axmed xasan liibaan oo ilbay ka mid ahaa ayaad arkaysaan inuu codkiisii dhiibanayo sida xubno kale oo ka mid ahaa jabhaddii FCS. waxaa kale oo ka mid ahaa xaaji cumar kaamil wasama ayaa isaguna codkiisii dhiibanaya oo kaalin weyn ka soo galay halganka allah u naxariistee, iyo cabdilaahi xaaji ardeeye oo isaguna ka mid ahaa jabhaddii FCS oo ka warramaya doorashadu sida ay u dhacday. maanta waxaa ka muuqatay cabsida la bixinayo iyo doorashada dhacaysa in dadka xeerka ama dadka Jabuuti uu yahay dad midi ah, gacan midi ah oo gumaysiga quus ku reebay. adduunka oo dhan ayaa indhaha si gaara ugu hayay doorashadaasi ummadda Jabuuti ay u codeynaysay gobonnimada. siyaasiyiinta reer Jabuutina geesida ayay uga soo jeesteen gobonnimada iyo aftidaasi, iyada oo ummadda Jabuuti muddo dheer ay sugaysay in maalintaasi ay hor timaado oo dadaal dheer ay usoo gashay. ummadda Jabuuti abaal weligeed ay iloobeyn ayay u haysaa ummadda Soomaaliyeed oo halgankaasi ku gargashay. libaaxu wuu kala garanayaa nin ganay iyo nin galabay. maalmaha Soomaaliyeed ayaa sidaasi jiraacda. axmed diini axmed oo ka mid ahaa halgamayaashii gobonnimo doonka ayaa idinka arkaysaan oo codkiisii dhiibanaya. natiijooyinkii doorashooyinkaasina waxay noqotay iyada oo dadku ay si weyn ugu codeeyeen gobonnimo. waxaana doorashooyinkaasi qornaa codkooda inay ka dhiibtaan 110,954. waxaana codkoodii dhiibtay 79,789. gobonnimo waxay yimid 75,405. waxaana gobonnimada diiday 204 cod oo ka yaatay.
sidii ay u bedeli lahaayeen wejigii gumaystuhu kaga tegay dalka dhinac walba waxaana golihii baarlamanku uu markaasi isugu yimiday fadhigiisii